السلام عليكم ولايف دقمنا كل دقب وعافر ميا المشروع قامريسي أي عدة تيس بلاس قلبتي ماشي أن شوقنا وبرس مقالي مقالة وحاك صعد هالكاس وحاك صعد هالكان فريتان كي مشروع تيس بلاس تدويني بس يميت ومقالي برس مقالة دي مقالة هالكا رياش وكم مقطع وريال باجوغا قربسي قوبي كورن هولقل كان هوشان في عني سقطا المسؤولين تدمنا كمتي aad bay u cadtahay hawshan waa hawshii dhagaxdhiga laamiga ee maanta ah sidii ay u mashaariic u bilaaban lahayd lamarwan insha Allah barkii waxaan maleynaynaa arrin hiddiilo fiican ayaan maleynaynaa mashruucan qolada qaatay waa kuwee waxa qaatay hay'adda kabeekom ya qaatay oo reer Galdood ah insha Allah بالكريم waxayna sameynaysaa hawlgal wanaagsan insha Allah بالكريم ilaabi tayaare markii hore horeysay oo Galdood laga fuliyo shaqo ilaabi ah markii maad ilaahay baan ku maadinay thank you very much waa maasanta odayaasha degmada mid kamid ah master haye shir arab hada qabsaday maamooyinkii baa jooga odayaashii baa jooga shacabkii baa jooga مستر جيل قاد بعدنا أي مغلا وري جيل قاد ودياش دقملا كم تاي كورن أما الليرة دقملا كورن إن شاء الله هرمر كان كورن دقملا بتلافسن دونتو إن شاء الله بابورتي دقملا لو قلت لك عليه هوش قبل لها بهال كان كم مغلا بابورتاس بلامجي بلابي دونا إن شاء الله baabuurtii waa kuwa baabuur waaweyn weeye waa faras magaalada waa meeshii ay ka baxayeen baabuurta gaalkacyo baabuurtii waa kuwan booyado Mr. Kabeko baa ku guuleystay meesha waa midkii ay dadweynuhu jeclaayeen xaggana aadayna hadda iyo waa magaaladii waa ciid halkaan ciid baa la yiraahdaa meeshan dhalinyaradi baa ii muuqata degmada waa kuwan baabuurtii Cabdilla Xoosh baadana ii muuqdo dhalinyarada degmada kamid ah Master Cabdulle ka waran hawshan gaashaan sare iyo horumarkan degmada ka bilowday wallahi yani inta isku calkantahay wallahi billahi waa baabuurtii wala keenay kuwan booyadihii waa kuwan baabuurtii qaadi lahaa jayga waa kuwaas marka miyaan horumar muuqdo hadda horumar muuqdo tahay laakiin dad badan waa lagu mariyaa laamigan diyaa ku maraya hadaan tartiib loo socon waa lagu mariyaa dadkan waa laami arage gubyadan baabuurta iska qaatay oo aan tababarka iyo traffic-ka leysan dad badan sulkooda waa laga qaaday laamiga badan dhiig ku dhigay insha Allah horumarka kulli ka fiican wax walba haddana waxa ay muuqda taliyaasha ciidamada federaalka mid kamid ah Master Tira Badne ka waran taliya arintan wallahi wax weyn baa noo soo siyaaday wadadii baa noo sameeyay hay'adii noo soo ma sha Allah maama ka waran arintan wanaagsan oo dhacday ina akood haye taliya يعني وددن wax weyn oo noo soo siiyay hadaan dhowranana si fiican bay noo anfacaysaa صح waa rabaa ureedan la talinayna inta wadadu socoto laamiga meeshii la xanibo inaysan ku saqajaamin oo ay dhaafaan hawlahoodii boobka iyo wada burburinta hay waa sax inta wadada loo dhameystiray waa inay ka joogan baabuurleyda waa sax oo ay u dhagan nuglaada dhanka milad iskartayada hadii u dhagan nuglaan waayaan qayb lixaal baa laga qaadaya idin qoladiina amniga iyo traffic-ku amarka bixinaysaan amar shaqayn kara ma yahay oo hawshan ka qayb qaadanaysan awood bay u leedahay qofka baabuur kale waa laga wareegayaa amarka hadduu saqaadan degmada la wareegaysa amarkaas waanu bixin waa sax Soomaaliya la joogaa hadduu ka qayb qaadan waayo wadada hagaajinteeda baabuurka waa iyo banaynteeda iyo wax walba waxa kale oo lala hadlayaa dadka u dhow wadadaas inay ama suurtagal tahay haddii gurigooda ay ku soo aado waa inay gurigooda jibintiisa aysan hadal ka keenin si aysan hawsha hay'adda tan ay soo xanibeen dadkani waxay u degeen sidii reebaadiyii ama degayay meelaha guriyuhu waa kala fofog yihiin see qofku gurigiisa u banaynaya haddii aan dhaqaale la siinayn taliya haday ku soo aado gurigoota ku soo aado waa laga jibinaya dhinaca ay ku soo aadaan laga jibinaya amarkaasna waa wada qaadan annaga dhan dadweynaha oo dhan waa ka shireen miya arinta dadweynaha iyo degmada iyo annaga dhan tuutay waa ka shireen thank you very much waa maasanta taliyaasha degmada mid kamid ah weeye Mr. Tire ya kala
hadlaa isika noo warantay isira ummadda Soomaaliyeed baadna wareysan lahayn ka waran isin arintan wanaagsan ee galabtay degmada ka bilaabmaysa laamigan abid aan degmada ka bilaaban oo la filayo degmada inuu ka bilowdo bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada bilicdeeda la wanaajinaya laamiga loo sameeynaya waxaan shacabka u sheegaynaa wixii ka hor yimaada bilicda magaalada gacan bir ah baa lagu qabanaya shacabku waxay leeyihiin ilaa aan aragno laamigii oo la bilaabay hadda la dhagax dhigay waan gaariyaashii waan la dhagax dhigay si wanaagsan bayna u soconaysaa shaqadu waa socotaa wixii ka hor yimaada oo gurigii laamiga ku soo aaday waa la jibinayaa sarbareenka taliya galka ayaan kugu ogeyn warar niman Facebook ay soo dhigayaan waxa leeyahay Istanbul baa dagaal ka dhacay arinta maxaa ka jira may wax ka dhacay waa magaalo heer leeyahay masasa taagi farbaasho ma santaa haddana waxa way baabuurtii halkan iga muuqda ya iga waran horumarkaan iyo ka waran magaalada diyaar ma u diyaar garoobisaan shacabka oo dhan in arintan garbaha qabataan thank you very much ama santiin waa baabuurtii halkaani waa magaaladii faras magaalihii laamiga meeshu mari lahaa dhalinyarada dhan baa socota waa degmada Galdogo meeshaan kaga soo waramaynaa halkaana shirkii baa ka socda dib baan ku soo laabanaynaa iyo odayaashii waramayay iyo hay'adii TS+ madaxdeedii yaa wax kama jiraan ma sheegtaadu horumarka degmada ayaa socda halkaas baa shirkii ka socda waa maqaayadii Cali Gubane halkaas Royal baa ku qoran halkaan waa magaaladii wata degmada Galdogo Riyadh miya aye meeshaan waa maqaayad caadi ah wata degmadii iyo laamiga meeshii la marsiin lahaa sida la filayo waxa weeye odayaasha dhan markaan taagan baabuurtii halka maraysa waa degmada Galdogo waa live waa meeshaan kaga soo waramaynaa waa meeshii baabuurta gaalka ay ka bixeen ciid baana ka shisheeya wata halkaana shirkii baa ka socda waa kuwan baabuurtii وعادي ودمحها حقيت شرتي وكون باورتي اسلامي قدوم يا لامي عندنا وحا مرودي أوروكا دمركا يستبع الله يسلم مرود كينغ فا قلبك الله يسوتها قدومي سورس كتاجر أصلا السلام يا سيدا قدوميها تكملة تيس مدح تيس براس إنك كقول استي كمبرجة حتى كيوهاكو ماشي كوريسيس بطلع سوريان هذا سوريان ها نيولا بركيسان يا إيش نيولا بركيسان وكان مدح تيس بلاس بس الليبان مدح تيس بلاس مستر ليبان وننك مشروع عن وطا وننك دليل الله مشروع عن وطا وحقيقة هي ودن كهذا ما أنت كتاجن وري بلد تاجن مستر تير بلاس وكان مستر ليبان كيف لو كنت دا عاد ماشي لو ورينا بحالك لو ورينا في واسع إن شاء الله يدري الشغيات ما كان الله يمشي إن شاء الله يسكسي جيا ساعات سوق قومية تذكر سوق قومية كوان حبها قبان أديك الله يفك أنه قضيه أكود الجنة وقت وكداونا يا ما كدخل يدي بحمرة يا ويسع كوان سوق قومنا حق ويهلا كبنتي ويكبر حنا يا يا
afka ayagoo ku yidhi baashada u shubaya ku yidhi oo hortiisa maaragtay ku daadinayo wax balaayaa kaloo maska haddana maanta insha allah biilaa bilaahaysteen waxaan leeyahay kalaahay insha allah biilaa haddana bulshada reer madoobe okay shayga oo puntland iyo hay-adaha loo soo loodisay dadka inay orod ku biliyaan xarmeeya dabcay laakiin xoolaha ay ka hakatay marka insha allah biilaa waxa weeye anagu ma nihin dad liita ama dad isdayacaya intii talataya waa dadaalayna waa hargamayna insha allah waan ii taaganahay inaan wax nala qabno diyaar baan u nahay degmada waxqabadkeeda hadalka ma badinayo insha allah biilaa waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin haddaad tihiin hay-adaha iyo haddaad tihiin kambaniga labadaba waa lagala shaqaynaynaa waan ii taaganahay diyaar baan nalanahay wax dhibana ma arki doontaan waa lasoo noqon doontaan insha allah biilaa sidaan uga baranay ximaleeyada waxaan ku darayaa gudoomiyaha degmada gudoomiye ayaxle waxaan leeyahay gudoomiye noolo baan leeyahay in kaloo maaragtay intii aad xilkaysay waxaad ku guulaysatay in ay shaqo badan degmada insha allah biilaa mana nihin dadkii waysan ama aan garanaynin waan kaaga mahadcelinaynaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waxaana ku leenahay وشكرا على واجب واحد دegmada adii waxaad u qabatay waxa aad qabatay ama aad soo samaysay marka insha Allah bismillah hadalka ma badan iyo dhamaantiin waan salaamayaa dhammaan waan soo dhaweynaynaa daahfurka xadiga laamiga waan la shaqeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan la jooga madaxdii xaafadaha waxaan rabaa inaan kelmad siiyo caashaan rabaa inaan kelmad siiyo insha allahu tacaala si ay kelmadeeda u dhahdo kamid ah xaafadaha degmada Galmudug oo insha allahu tacaala saldhig lagu noqon doono howlaha degmada laga dhalan doono maadaama ay bulshada barnaamijkan rabo inay إن شاء الله نقطع وحيد الله يوفقه وحاول السلام يا الدنيا المدى وحدك أبوها مرة يا حباش تبكي سيد الموضوع ذلك فإذا كنتنا سيدة الله السلام وحاول أشياء يعني تسباس هو مهندسان تحك وأنا لو بلا شيء وحسام يا الكلمة وكان فاس بسيارة هو يوينك وشو قيمة هذا كان الدول سلام بعدين غير الضبط waxa lagu yaqaanaa waxqabadka waxtarka wada shaqayn غير الضبط waxaan leeyahay ayaan ka hormaraya غير الضبط oo dadka iyo laamiga waa inaad ka faa'iideysataan sidaad waxqabadka hore uga faa'iideysan jirteen oo dadka uga shaqayn jirteen hay'adaha oo wax walba oo maalkiina iyo maalkiina ugu huri jirteen haddana waa inaad u hurtaan maalkiina iyo maalkiina idinkaa qabsaday hadday tahay iskoolo hadday tahay isbitaal awalba idinkaa dhisateen haddana maanta siyaada haddii laydin keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa ku maqsantahay tisbaas waana ka faa'iidaysanaynaa waxna waa qabanaynaa waxaanu jecelahay wax laala doono dhanka berigan inaanu qabsano maal iyo mowdna aan ka hadlan sababtoo ah annagu awal waxaanu nahay degmo haddana waxaanu rajaynaynaa haddaanu helo laami inaanu gobol noqono marka maanta xaniyaa la haraynaa ma jirto banaankaanu dhiganaynaa xaniyaa iyaga sababtoo nin degmo raadinayaa haddee maanta wuxuu la haro ma laha sidaas laga gobol raadinayaa reer badbood taas ha ku hamiyeen laabta ha geliyeen inay gobol noqdaan inay gobol raadsadaan inay gobol ay noqon doonaan laami haddaad heshid gobolnimo waxba kuma jiro laakiin waa markii aad maalkaaga iyo moolkaaga aad hurtid xoogaaga aad hurtid wax walbaba aad soo dhawaysaan hadalka waa soo yaraynayaa waxaa weeye waynala shaqaynaynaa waana inala shaqayn doonaa waana inala shaqayn jirnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah waqtigu gabagabo xiriiriyaha ila jaamac صندقات قصنتي degmada waxaan rabaa inaan hadda ku soo dhaweeyo cabdinaasir cali daahir abbaandhaga dheere insha allahu tacaala kamirihiisa isagana
أبوانكي السلام عليكم ما شقينا يبارك أبوانك دقمدان والله waxaan u malaynayaa wax haray oo la isqoranaya ma jiro gabdhihii aan hadlayay baan markaan dhageystay waxba may hambayn way hadalka way egiyeen waa qayaayo ma lahayn hadalka marka aniga keliya waxaan ka hadlayaa dadka waxaa jira dadna waa xogaal oo waxbuu og yahay dadna war ma hayo ama hafta joogo magaalada isagoo jooga ama ha ka maqnaado adduunka kala jira waxaa jira ilaahay darajada uu bixiyo rususha ambiyada ayaa ugu qaalisan saadiqa ku xiga qofka rumlo waa ku xiga anigu maanta markhaati inaan furo u baan imid halkaan wax kale aan u imid maayo inaan markhaati furo nin guda jooga iyo nin daba jooga lahay maro markhaatigaan furaya waxaa weeye magaaladan waa laga shaqeeyey wax maal baa la gashay adduun oo dhan baa loo garaacay albaabur baa loo tegey waa loo dulqaatay wax badan baa loo sameeyey maal badan baa la galay oo adduunkuna gashay ummadduna way shaqaysay dadka marka arrintaas waxaa ka shaqeeyey dee madaxda degmada ayaa ka shaqaysay oo xasan faarax ugu horreeyay dee marka waa la shaqeeyey waxaa maal galay iyo waxa guri la dhisay hadda meel kasta biyaa ku jira solar baa la keenay waxaa la keenay hadda laamiyaa la wadaa biyihii meel walba yaalli wax walba waa loo qabtay imseejyaa jira iskuullaa jira waxbarashaa jirta wax guryaa jira marka guriga hooyooyinka kuwa dowladda hoose kuwa bilayska kuwa marka meeshaan waa laga shaqeeyey dadkuna in xiqdi iyo xasti la isaysto ma aha hay-adaha iyo adduunkuna iskama imaanina rag baa ka shaqeeyey maamullaa ka shaqeeyey madax kala sarraysaa jirta waa laga shaqeeyey waa taa sheegaysanoo liibaan jaamac waatuu inoo sheegaaye marka waxa weeye markhaatiga aan furaynaa waxaa weeye waa laynii shaqeeyey adinkuna alxamdulillah dhaha madaxdiinnana adeeca oo raaca dibna u doorta haddaad rabtaan ma garanaysa haddaad wax ka fiican weydaan mogta waxa ka fiican haddaad heshaanna waa dooran kartaan laakiin waxaan leeyahay waa laynii shaqeeyey anigu markhaatigaasaan u imi hawsha lahayana caasho ayaa sheegay caasho cali ciise xasan xuseen ayaa sheegay iyo ina gaafaa ayaa sheegay waxay leeyihin hawsha lahayo waa ka qayb qaadanaynaayo degmadu way ka qayb qaadanaya dadku waa ka qayb qaadanaya adduunka horta waxaa la yidhi marodiga kan laga oocay oo maraya aydiisa muraadu ma gasho qarandiduba waa la mirataa mankana way iska gurataa hadduu laan marorsado laan maroodi jabiyey ayay ubaxeeda iska guranaysaa nogta rag aan waxba qaban oo maalinna aan dariiq yar wax yar aan qaadin qorax yar aan qaadin oo magaca iyo degmada iyo naagaha isaga qabo xiruf leebaa badan mogta wax alla waxay qabteenna male wuxuu sheeg iyo xulu keliya hayaan mogta marka dad baa u dhintay dad baa u dhaawacmay dad baa waktigoodii geliyey dad baa maalkoodii geliyey marka waxaad yeeshaan intii shaqaysayna way maadsantahay inta aan ogayna ha ogaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsanyahay abwaanaga dheere waxaan kusii sidaynaa gabagabadii insha allahu tacaala marka waxaan u dareeri doonaa dhagaxdhigii mashruuca intaana marka aanan u dareerin insha allahu tacaala waxaa nala jooga maxamed oo ah ururka dhallinyarada guddoomiyahoodii waxaan insha allahu tacaala barnaamijkeena haddana kusoo dhaweyn doonaa faysal oo ah madaxa kambaniga si aad isku barataan kabacdina insha allahu tacaala waxaan u dareeraynaa dhagaxdhigii markii dhagaxa la dhigana insha allahu tacaala shirka waxaa noo soo gabagabayn doona guddoomiyaha degmada maxamed kusoo dhawo marka بسم الله الرحمن الرحيم وهوري waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax hay'adda Splash Liman Jaamac runtii hay'adda maanta dhaqiyay salaamiga Galdogob warbajoogta culimada ugaaska iyo dhammaan dhalinyarada labanaysa iyo hooyooyinka iyo dhammaan xaafadaha salaanka bacdi maanta waxaa noo farxad ah in aanu joogno
dhagaxdhiga laamiga galdogob oo in badan aan ku taamaynay inaan helno magaalo laami marsin oo magaalo qurux badan oo runtii bilic magaaladan qayb qaadanayso runtii laamiga in badan baan sugaynay marka maanta waxaan taaganahay waa agdhigii ama dhagaxdhigii laamigaasi waxaan leenahay waa idin hambalyaynayaa dhammaan bulshada reer galdogob iyo dhammaan hay'adda Cities Plus oo barnaamijka maanta noo fulinayso intaa ka bacdi ka dhalinyaro ahaan inta u gudbo runtii kambaniga u guulaystay barnaamijkan waxaa leeyahay usoo jeedinaya codsi ah ka dhalinyaro ahaan waa idila shaqeeyaana dhalinyaro ahaan adigan waxaan leenahay in dhalinyarada aad u abuurtaan shaqaabo maadaama la dareemayo oo shaqo la gelayo waxaan leenahay in dhalinyarada ay ka hesho fursado badan oo shaqo oo dhismaha laamigaas marka barnaamijkaasina waxaan leenahay waa codsi ka dhalinyaro ahaan usoo gudbinayo anoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada galdogob bahana gudoomiyaha dhalinyarada galdogob waan soo dhaweynaynaa barnaamijkan insha allah waan la shaqeyn doonaa si toos ah iyo si dulmaadwaalin waxaan leenahay hay'adda Plus inay guulayso ilaahayna ka abaalmariyo barnaamijkan iyo runta noo fadhiisteen liibaan jaamac runtii waa in dhalinyaro ah oo runtii aad jeer noo soo noqday jecelna hormarka degmada galdogob haddii si loo fiiriyana waxaan dhihi karnaa waa nin reer galdogob dhanka ah dhihi karnaa marka leenahay liibaan adina ilaahay kuwa ka abaalmariyo dadaalka dheer loo gashay ka dhalinyaro ahaan ka bixi maayo mashruucaani wixii dhalinyarada qusaya dib baan insha allah wax doona liibaan hadaalidmo waxaan leenahay gudoomiye adigana ku mahadcelinaynaa guulayso gudoomiye intaad joogtay waxaa noo fulisay waxyaabaha aad iyo aad lagu diirsado oo ka mid ah laamiga degmada galdogob anigana ka dhalinyaro ahaan waxaanu isu xilqaamaynaa in laamigaas xabad boor iska lagu isbaanto alidmo aan xaaqino marka boor etabto aan isxaqaan ku qurxinno hadduu alidmo aan geesihiisa ku talaanay geedo qurux badan hadduu alla yidhaahdo laamigaasna aan waardiyeysano oo laamigaas insha allah noo noqdo dhalo hadduu alla idmo taasi waxaan balan qaadaya anuu ka dhalinyarada anigii tiimkee dhalinyarada insha allah ka shaqeynto in laamigaas insha allah noo noqdo laami la intifacdo hadduu alla idmo qurxintaasna insha allah ka shaqeyno waxaan leenahay gudoomiye adigana guulayso ilaahay cimrigaaga iyo cafadka ilaahay kuu siyaadiyo ilaahayna ha kaa dhigo gudoomiyihii runtii magaalada inta ka soo qabtay ilaahayna kuu darqaadkaada doonayno waa shaqaysa gudoomiye runtii hadday gudoomiye ku hadday u sheemuran waxa leenahay kuwa imaan doona insha Allah inoo noqdaan sida gudoomiye hadda fara kale si ay inoo noqdaan doonayno ama asiga inoo soo noqdaan insha Allah waarjina doonayno waxa leenahay hambaliyo gudoomiye anigana waxa leenahay waxaan balan qaadaynaa in laamigaas insha Allah waan ka shaqeyn doono oo raami insha Allah wixii u baahan farsamada doonayno waa maasintii dhawaantii ما شاء الله محمد عاد هو مهتسيه طبعا waxaa noo haray madaxii kambaniga Kubeerko oo insha Allah taala shaqada ugu badan qofka ay reer galdogob inay dhex mari doonto inta wax yar hadaan ku daro intaan u yeerin Faisal run ahaantii dadka reer galdogob waxaan rabaa inaan ogeysiiyo ma ahan mashaariicda laamiga kaliya insha Allah taala mar dhow ayagana waxaa daba socda solar light-ki oo la rabo dhammaan degmada inuu gaaro oo ay ifto waxaan heli doonaa suuq weyn oo casri ah insha Allah taala asaguna processka ku jira oo insha Allah bilahan gudaheeda la bilaabi doono waxaa ka mid ah oo xusida iyadoo in la jiri doono station casri ah oo la mid ah stationada caalamka insha Allah taala in si degdeg loo dhisi doono waxaa kaloo degmada iyo maamulkan intuu shaqeynayay ay ku guulaysteen JPLG-ga oo run ahaantii degmada galdogob in badan aysan ku jiri jirin in hadda hawlihiisii ay socdaan oo ku dambeeyay hadda isbuuci dhaweyto aan soo ansixinay si toosana insha Allah taala mar walba uu socon doono aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan xubnihii dadaalka dheer soo biyey haddana waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo mikrofoonka Faisal oo ah madaxii hay'adda kambaniga Kubeerko oo insha Allah taala laamiga noo dhisaysa Faisal kusoo dhaweeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا bulshada reer galdogob odayaasha haweenka dhalinyarada kulli waa salaamantii waxaan leenahay galdogob cusub waa bilaaban doonta walaaliya helasha insha Allah magaaladu laamiga weyn oo halbowlaha oo Soomaaliya isku xira wuxuu jiraa hormarinaya wax ka badan konton iyo xoogaa
waxay noqon doontaa saan filayo haddii alla idno magaalada koowaad oo yeerata laami degmooyin badan baa jira oo galdogobo kale ah aan wax laami ahayn waxay noqon doontaa mid u horeysa haddii ilaahay idno ilaahay naga saacido reer galdoobna ay nacaawiyaan shaqadana si fiican loo wado kibaarku waxaa dooratay reer galdoog waa la tartamaa tartanka markii la sameeyo waxaa loo hordhigaa bulshada ama communitiga ka jira degmada ayaga ayaa codsaday kibaarko inay shaqada qabto maadaama ay sidaa dhacda annagu baqdin badan baa nagu jirta maadaama nala doortay ama wax naga khaldamaan baas leenahay laakiin waxaan ballan qaadaynaa laamiyada aanu dhignay gaalkacyo buurtulle iyagoo kale inay insha allah heli doonaan umaanaan imaan 1.6ka oo ma garanaysaa hay-adda test plus ay hadda bixinayso waxaan u nimid in magaalada aanu ka dhigno magaalo laami badan 5 kilomitir iyo ka badan oo gebigeedaba isu ekaato marka gaar ahaan waxaan u celinayaa mar kale maxad gudoomiye yaxya oo aad iyo aad ugu dagaalamay muddo hadda bil iyo xoogaaya war maad dhibaataan war maad dukumentiga saxiixdaan war maxaa u dawleedihiin war shaqada maa noo qabataan war kibaarkooda maxay u dawleedahay tasbalaas laftigeeda culays badan bayna saartay shaqada maa qabataan war ha dukumentiga maa saxiixdaan maxaa jira labada qolo oo aad iyo aad culayskooda u weyn yahay waa tasbalaas iyo duqa oo dhahaya mar walba shaqada hal la fuliyo kibaarkooy waa gacan culistiina soo dhaqaaqa qalabkii maanta qayb ka mid ahay sida iskarogooyinka waxaa soo socda qalabkii birta culus oo qaata wakti siday u yimaan lahaayeen magaalada galduub bas xoogaa way ka fog tahay xarumaha ay qalabka yaaleen tasbalaas waxaa nagala jooga diibaan iyo injineer xirsi waa niman dhalinyaro ah oo aad ugu hamweyn shaqadan inay fusho jecelna inay success noqoto success waxaa lahaa wax badan bay ammaanka kambani ahaan nagala hadleen war shaqadaas fuliya oo si sharaf loo fuliya marka waxaa la rabaa haddii lahayn in la iscaawiyo communitiga regodogo hay-adda duqa iyo annagoo kibaarkaa kulligeen waa inaan geedka isku malgeyno oo laamiyada dhabtaa oo aanu soo wadno haddii alla elo aanu wada fulinaa la wada shaqeeyaa waxaan la joogaa guddoonta sheekh cabdiciis umaaska waddan baa soo deganaha iyo ninkii laamiga boolisi maaliga ahaa lacag bisan loomayinaayo aad arrintaas asaga macnaha ugu farxay markuu isoo ogaaday inaan maaragtay shaqadii anagu lacag ku hayno haddii ilaahay waxaanu maanta dhagax dhigi doonaa jidkii maanta laga bilaabana shaqada waxay noo bilaaban doontaa si habsami leh ramadaan baa insha allahu tacaala fooda lagu soo haya shaqadii boqol lama geli karo dadku waa iska sooman yihiin laakiin haddii alla idmo bisha ramadaan markuu dhammaato waxaan heli doonaa wax dhab ah oo la taaban karo oo bilow oo dhammaan noodu haddii ilaahay shaqadan waa shaqa dhib badan waxaana kalifaysa materiaalku waa ka fog yahay galdoog wuu jiraa muddo badan asfaltii waxaa laga soo qaadaya magaalada galdoog sidoo kale gaalkacay waa geynaa laakiin saacado kale bay qaadanaysaa si loo soo leexo halkaa oo loo imaado marka ilaahay markiis waxaan rabnaa si dhaba oo sharaf leh in insha allahu tacaala aan galdoog uga shaqeyno 1 kilomitir iyo bar ama 6 boqol la socnee 5 kilomitir oo duqayaha leh iyo communitiga reer galdoog oo hadda ka hor aanu kulannay oo aanu wada fariisanay oo naga codsaday inaanu shaqada u qabanno oo reer galdoog darteedna aanu u nimid magaalada iyadoo shaqadu ay tahay shaqa ii sheegtay xoogaa ka dhib badan midii gaalkacyo iyo midii buurtine oo ah
serviceka macnaha sida dhawaanshaha dadka marka insha allahu tacaala aanu isu ducayno shaqa dhabaan qaban doonnaa haddii alla idmo waxaana qaban qaadaynaa magaalada galgadob isbeddel dhab ah inaanu ka muujino ka kambani ahaan contributionkana aanu ka qayb galno haddii alla contributionka waan ka qayb galaynaa maaha lacagta hadda la bixinayo lacag ku sugan magaalada laakiin insha allahu tacaala lafdhabar baan noqonaynaa waana hirgelinaynaa haddii alla idinkuna dhankiina waana rabaa inaad ka dadaashaan waxaan ku soo koobayaa aad baan waxaan u salaamayaa gabyahayahle bulshada reer galmudug oo isku wada jira haween dhalinyaro odayaal waxaan haddana si gaara u salaamayaa oo u soo dhaweynayaa injineer xisi iyo liibaan oo ah niman dhalinyaraa oo aad u jecel inay shaqadan hirgasho kuna haweyn inay galmudug wax ka bedelaan haddii ilaahay idmo waan wada salaamayaa waxaan kaloo marka u dhammaystiraamayaa saxaafadda sicidlaana waa nin dhalinyaro oo saxaafadda gobolka mudug ama puntland oo soomaaliya aad uga shaqeeya mar walba annagoon u yeerin u yimaadaa maanta anigu ma ogeyn soo taagan ma arka meesha marka mar walba ayaguna insha allahu tacaala dadaalka qayb bay ka yihiin oo nakarwan bay ka yihiin ilaahay idinkiis waxaan rabnaa inaan isu ducayno hawshaasna aanu u fulino insha allahu tacaala si gobolnimo leh oo sharaf leh waan idin salaamayaa reer galmudug barasho wanaagsan iyo wada shaqayn wacan asalaamu calaykum waraxmatullah barnaamijkan waa iska sii gabagaba aad buu u mahadsan yahay faysal dabcan aad si fiican isku sii baran doontaan intaa wada shaqaynaysaan annaguna waxaan markhaati ka nahay kambaniyaasha puntland wax ka qabta intaan arkay inuu yahay kambaniyada ugu fiican run ahaantii aad baan marka ugu farxa markii la yidhi waxaa guulaystay kambaniga kibeerka insha allahu tacaala waanu la wada shaqayn doonaa waxaan rajaynaynaa hadda waxaan u dareeraynaa dhagax dhigii dabcan waxaan u malaynayaa markaan dhagax dhigga dhigayno dadkoo dhan kuma wada filla marka inaan space helno guddoomiyaha coqaasha ganacsatada iyo shaqeyb ka mid ah inta kalena bulshada ay gadaal maraan haddana aan u dareerno insha allahu tacaala dhagax dhigii markaasna dhagax dhigga korkiisa guddoomiyuhu noogu soo xiri doona shirka aad baad mahadsantahay ترتيب 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 مدح تيس بلاس دومي مدح تيس بلاس مستر ليبان أبوانكا مدح الدولة هوسي مستر فارع بشير تريا دولة هوسي مستر فارع بشير هذا استاك دوبي هذا عادي اوكي 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 فين حق هذا قلدوا ستيشن بوليس فيصل contribution ku samaysata ballan qaaday ninka Faysal walaalkiisa oo leh wargaldo geeyo idinku qalabka dhismaheeda shaqo ma leeyahay waxaan oo ballana inaynu si wada jira oo lilaahi ku jiro aynu dhaqaalahan ugu bixino una hurna nafteena iyo dhaqaalaheena kana shaqeyno gabdhaha waxaan si gaar ah ugu sheegaynaa
shaqo gaar oo qaban karnaan baa laydin diraya ka soo qayb qaata haddana dhagax dhigii baynu gelaynaa gabdhaha kula qabtaan gudoomiye gabdhaha kula qabtaan gudoomiye kaamirada soo eega xoogaa saan gees isku egsiya xoogaa sida kaamirada soo eega marka idinkoo ku haya hal mar kaamirada idinkoo haya sorry waraa beel lama ku arka aniga شجبوا ولا مات عينينا الله سبحانه وتعالى خير عليه الصلاة والسلام هذا عن الطريق الصدقة وقارسة marka jidka inta shaqada ma yada hal wanaajiyo inta ka soo shaqaysay inta ku jirta khayr bay ka helaysaa annaguna markhaati baan ka nahay wixii halkaan laga yirina waxaan rajaynaynaa inay daba galaan ay maaragtay si fiican u hirgalaan waa ku tufaynaa waa ka ducaynaynaa ilaaha subxaana watacaala noo hirgeli ilaaha noogu dhammee ilaaha midaan nooga dhig ilaaha intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeya marxuum wasiir cabdi xoosh jannada geli ilaahuna qabooji oo roobna sii ilaah waxaan ugu ceebayn oo hay-addu say ku baqaysay dhisaysaa cabsida ilaahu ka saar annaguna waxaa weeye ducada waa wadaynaa ugaas ninkii Nairobi u tagay ma ninkii Nairobi u tagay hawsha ayaxle gudoomiyahooda ay codsanayaan marka uu usoo laabto aad iyo aad baad umahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you very much. Thank you very much, Mr. Liban. Madaxa Tis Plus, Mr. Liban. Thank you. Waa dhamaatay dhagax dhigii waxaan filaynaa Galdogob. Galdogob oo laabina insha Allah tacaala. Meeshaan kaga soo warramaynaana degmada caanka ah ee Galdogob. Thank you very much. Wuu dhamaaday wax walba. Thank you very much. All of you watching us. Thank you. Waa degmada Galdogob. waa inaa hebel xiiray oo mid ka mid a wada booyadihii. Thank you very much.